geeska Afrika waa mid nasiix xoogaysanaysa Ilaahay ayaana dadka abaarta ka qaadi kara ee Allah cabsi hala weydiisto ayuu leeyahay qaar ka mid ah dhageystayaasha oo baraha bulshada fariimo noogu reebay ayay ahaayeen markana intaan u galin Suudaanta Koonfureed qowmiyadda Oromada ee ku nool dalka Mareykanka ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ku baaqeen in lala shaqeeyo madaxweynaha iyagoo tilmaamay in qowmiyad ahaan ay dan ugu jirto nabadda Soomaaliya Mukhtaar Adeero iyo Mahdi Cali Cumar waxay ka tirsan yihiin bulshada Oromada ee Minnesota wariyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen Shiine ayaa wareysay wuxuuna ku hormaray Mukhtaar madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxaan leenahay soo dhawow congratulations hambalyo Farmaajo aad baan ugu faraxsanahay haddana beesha Oromada especially degan gobolka Minnesota waddanka Mareykanka aad baan ugu faraxsanahay maxaa farxadaasi keenay markaad fiiriso farxadaas waxaa keenay oo kamid ah dadka Soomaalida iyo qowmiyadeena dad walaalaha waaye oo isku dhaqane oo darisanahay oo dad badan naga dhaxayaan marka qurba joogno waxaan hal baan nahay dareen hal waaye taas way ummad badan oo Oromo waxay degan yihiin dhulka Soomaaliya meel bay tahay gobol aad Soomaaliya Oromo kiirisa marka waxa aan xuseeyo in waddanka toban noqdo oo midoobo anagana waxaan ugu jirtaa marka waxa weeyaan Mukhtaar waxay Soomaalidu tiraahdaa inta badan waxa weeye waddanka Ethiopia ee dariska nahay darisnimadeena lagu tixgeliyay waxa weeyaan faraha ayuu nagula jiraa marka idinka Ethiopia baa tihiin marka la fiiriyo maxaad leedahay marka annaga haddaan qowmiyadda Ethiopia nahay Ethiopiaanka oo Soomaaliya fargashto siyaasadeeda min Oromo nahay qowmiyad la dhaho oo dad Soomaalida isku dhaqan nahay oo isku afdhow marka dadkaas kama midna annaga always aniga waxaan rabaa inaan sheego dadka Ethiopiaanka oo raba inay siyaasadda Soomaaliya fargeliyaan maanta inay ku dambayso ee Soomaalida tashato ayaan u baahnayn shisheeye inuu fargeliyo siyaasadooda ay adigu sidaas oo kale midnimada Soomaalida ma ku faraxsantahay I'm very happy, I'm proud. We're proud of you. We're proud of Somalia. marka waxa weeye Mukhtaar maxaa kale oo Soomaalida markaad u fiiriso dad sheegtay isku dhaqantiin baatiin maxaad u maranaysaa inuu ka khaldan yahay oo dawladnimadii Soomaalida ay u dhisan laayeen waxay u dhisan laayeen dawladaha Western iyo dawladda Ethiopia Kenya baa rabinayna Soomaaliya mid noqoto Soomaaliya waa waddanka kaliya oo East Africa haddii ay mid noqdaan oo noqon karo waddan xoog leh super power oo bada fiican leh oo bacayshurintoodu ay yihiin very smart marka mar rabaan dadkaan inay noqdaan inay midoobaan waxay ka faa'iideysteen qabiiladan ay Soomaalida ku dhaqmaan ay ka faa'iideysteen intay xoolo siiyaan dadkaan oo isku sheego qabiilka intay xoolo siiyaan isbaaroon dhisaan waxa soo sameyn jireen oo dhaw oo la arkaa waxaa rabaa inaan sheego special dhalinyarada Soomaalida kuwa age-koodu yahay from 20 to 40 kuwa yahay hadda geysanina waxaan odayaal sameyn jireen عرض فعل سكوك عليه أدون كبير نقضي فرنسا بلجيم استقال جرين حتى ونواعي وحنا نقضي European Union United States هذا نقطي there is no reason إن الصومالي كلا قاضوا أو قبل لساتو فرماج هلا راعوا ودك هلا مديو هلا جا فكروا إيست أفريقيا سي للسوس ككيننا maxaa dan ugu jira leedahay qowmiyadda Oromada Soomaali oo midowda ama Soomaali oo dawlad noqota horta Oromada iyo Soomaalida dan waxay leeyihiin gaara dadka gaarka waxa ay dirsanaay dhulka annaga beero waxa ka soo baxay khayraad ka soo baxo maalintii waxa galo dhulka Soomaaliya waxa gabar badan gasho Soomaaliya waxa lagu soo galo every electronics with the consumers dadka wax gataanahay dadku dhaqanaanahay marka interest gaar ah naga dhaxayso dadka laakiin Soomaaliya fargelinayo waxay degan yihiin North Ethiopia Soomaaliya daris lama aho diin islaam laho dhaqankooda isku mid maaha nacayb Soomaaliya ku jirto weligood ilaa ilaa xirslaase marka dadkaas iyo anaga isku mid yihiin anaga Soomaaliya waxaan nahay waddankeena labaad waddankeena dariska dad ku shaqeynaya Cafarta Soomaalida iyo Oromadu dad walaalaha waaye anaga always waxaan ka fikiraa wanaagga Soomaalida kuwaas waxay ahaayeen Mukhtaar Adeero iyo Mahdi Cali Cumar oo u waramayay wariyaha BBC-da Mareykanka Maxamed Xaaji Xuseen Shiine